سلامتي labada calan ayaa la garaacay calamada Soomaaliya iyo Turkiga oo labada madaxweyne Madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay wada qaateen marka hadda askar ka tirsan ciidamada militariga oo si gaar ah u tababaran ayaa maamuuskii salaanta siinaya madaxweynaha labada madaxweyne hadda ayay soo dhaqaaqeen oo ay maamuuskii loogu talagalay ayay maaragtay marayaan oo ay sameynayaan madaxweynaha Soomaaliya Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan weeye oo si wada jira u soo dhaweynaya ama madaxweynaha Soomaaliya uu soo dhaweynayo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo sidaad arkaysaan cutubyo ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa soo dhaweeyay wuxuu hadda gacan qaadayaa taliyaasha ciidamada taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadkii kale ee loogu talagalay mar sharafta inay soo dhaweeyaan oo isugu jira xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin wasiirro siyaasiyiin huzurunuzda şahsım ülkem adına teşekkür ediyorum. waxaan u mahadcelinayaa shirkadda samaysay oo loo yaqaano Kosovo Group airportkan quruxda badan dawladda Turkiga iyo shacabka Turkiga magacooda ayaan ugu mahadcelinayaa. Başarılarının burada artarak devamını yine Rabbimden niyaz ediyorum. waxaan u rajaynayaa haddii Ilaahay yiraahdo in ay halkaa ka sii wadaan dua ve temenni ile kordeleyi kesiyoruz. waxaan jaraynaa haddii Ilaahay yiraahdo Ya Allah, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bismillah. waa tahay sidaad arkaysaan xariga ayaa laga jaray terminaalka cusub ee garoonka diyaaradaha aadan cabdulla cusmaan oo yeelanayo madaxweynayaasha iyo wafdigooda ayaa bixi doona shacabka iyo dadka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay waxaan rajaynaynaa inay maaragtay dhowraan borotokoolka